السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii aad tahay qof cabba caanaha aan kugula taliyo inaad koob caanaha ku darsato jeex yar oo toona kadibna aad cabto muddo bil ah oo xidhiidh ah isla markaana aan kuu sheegay 8 faa'iido oo dhinaca caafimaadka oo ay jidhka u leeyihiin marka caanaha iyo toonta la isku daro marna la wada isticmaalo. waxaanay yihiin 8 faa'iido ee ay jidhka u leeyihiin toonta iyo caanaha la isku daray sidan soo socota. kow cilmi baadhisyo badan oo lagu sameeyey marka toonta iyo caanaha la isku daro marna la wada isticmaalo ayaa lagu sheegay inay ilaa xad hoos u dhigaan dawana ka yihiin xanuunka sonkorowga gaar ahaan marka uu qofka ku cusub yahay. laba waxay dawo iyo ka hortagba ka yihiin xanuunka beersubagowga ee kolestaroolka waana marka labadan shay oo la isku daray mar la wada isticmaalo muddo bil ah oo xidhiidh ah. saddex waxay yareeyaan hoosna u dhigaan halista uu qofka ku keeni kara xanuunka dhiigkarku waana marka xaddiga laga isticmaalayo toontu aanu badanin. afar cilmi baadhis lagu sameeyey ayaa lagu sheegay marka labadan shay la isku daro inay 50% ka hortagaan xanuunka kansarka gaar ahaan kansarka ku dhaca mindhicirada. shan waxay xoojiyaan awoodda iyo caafimaad qabka lafaha waxaana yareeyaan xanuunada iyo gaabiska ku dhaca lafaha gaar ahaan markay dadku weynaadaan. lix waxay hoos u dhigaan miisaanka badan ee jidhka waxaanay wanaajiyaan caafimaad qabka dheefshiidka iyo guud ahaanba urkujirta. toddoba waxay kor u qaadaan shaqada isu socodka dhiigga ee jidhka oo dhan waxaanay jidhka ka nadiifiyaan sunta ka timaada hadhaaga cuntooyinka la cuno qaarkood. sideed waxay jidhka ka saaraan fayraska waxaanay kaxeeyaan oo qofka ka biiyaan finanka kasoo baxa wejiga. waana marka koob caana oo wax yar aad diirisay aad ku darta jeex yar oo toona kadibna aad si xidhiidha u isticmaasho muddo bil ah. waxaana kasii wanaagsan inaad ku sii darto hal qaado oo ah malab saafi ah. mahadsanidin.